أريان يور حد سعودال تي في سبسكرايب هذا سبسكرايب قراني فضل نخ لايك تداك لا حستي ماي مع القار هل كان أنا أركو نص سبسكرايب أنت وقعت سعودال تي في أنا واحد سعودال تي في وحوا بلاش سبسكرايب قرا daawade ku soo dhawow Socdaal TV haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe dhe like ta saar siina share garee su'aalo la dhax qaaday dadweynaha ku nool magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo oo uu ka soo horbaxo shaydaan waxaad ku sameyn lahayd hadiiba dadweynaha ku nool magaalada Burcaayo su'aashaasi siyaabo kala duwan uga jawaabay xamse far abdi xamse ku soo dhawow Socdaal waa ku dhawaa su'aalo la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo shaydaan ka soo horbaxo waxaad ku sameyn lahayd waxa weeye de shaydaanku ilaahay nagama soo horsaarey horta waxa weeye shaydaanka waxa weeye haddaad aragtid iyo haddaanad aragba dee shaydaanka waa la iska naaraa dee naarninka haddii ku tegi waayana qulxiyaba ku akhri waxa weeye shaydaan midhaysku shaydaan baynaan sheegayni shaydaanka dee haddii la iska naaro dib looma arko haddii dee waxa weeye uu tegi waayana saddexda quluuliyo iyo qulxiya ayaa lagu akhriyaa markaa shaydaanka ilaahay nagama soo horsaaro horta ma waxa weeye miyaanay saxay sidaa miyaanay ahayn aan ku dhawaay walaal aad iyo su'aalo la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo shaydaan ka soo horbaxo waxaad ku sameyn lahayd shaydaanka la sheegay aniga hadduu ilaahay tusaba ilaahay hor taagi lahaa intaan qabto ma bisi daayeen wallaahi istaa maxaatan u dilaaba iska ciyaaraya laakiin si hadday dhacdo weeyaan dee ilaahay bay iga soo horsaara adabaan jirsiin lahaa أنا لبس سجلها واحد كلام معه magacayga walaal waa Fattaax Maxamed Xasan Fattaax ku soo dhawow Socdaal TV walaal waa ku dhawaay walaal su'aal la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo shaydaan ka soo horbaxo maxaad ku sameyn lahayd waxaan ku sameyn lahaa waxaan oran lahaa de xoogayaan suuqa ku galay dhiban oran lahaa de iska kay habeen oran lahaa oo nooca wax kale ma ku dari lahayd wax kale may waxaan oran lahaa de reerihiina inay soo bardeeyo qabiiladiina aan de heshiis noqonay hey farinta Sandra Cabdiraxmaan Warsamo Xasan Cabdiraxmaan ku soo dhawow Socdaal TV waan gartaa ku soo dhawaay su'aal la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo uu ka soo horbaxo shaydaan maxaad ku sameyn lahayd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم horta shaydaanku haduu marka hore inagu shaydaanka ma aragnaba isma aragno haduu ka soo horbaxana arkimays laakiin hadii qof shaydaan ku dhex jiro oo ka dhex hadlaya aad aragto de waa shaydaan la iska naaro la iska tagaa laakiin shaydaanka inagu ma aragno kaba soo horbaxay haduu ka soo horbaxana aad arkimaysid de aad arkimaysid de waa sida dhiigu raaca qofku ku dhex jira meelaha sudee ka laabanaya shaydaanka laakiin inagu shaydaanka ma aragno haduu ka soo horbaxana arkimaysid weey magacaaga walaal waxa la yiraahdaa Adnaan Mustafa Adnaan ku soo dhawow Socdaal TV waan ku dhawaay saaxiib su'aal la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo uu shaydaan ka soo horbaxo maxaad ku sameyn lahayd saaxiib waan iska naar lahaa A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim baan oran lahaa intaas iga eegta may shaydaan iga soo horbaxay yaano shaydaanka iska naar mooyaan ujeedo kale aan ka leeyahay ma jirto Mukhtaar Sayd Ali Mukhtaar ku soo dhawow Socdaal TV waan dhawaay walaal la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo uu shaydaan ka soo horbaxo maxaad ku sameyn lahayd shaydaanka horta markiis hore lama arkaba laakiin haddaan qaban lahaa oo wada wanjalaado oo la arkayo aakhiraan u diri lahaa baanu marka dee maxay talay haddii aan arko qof isku soo shabahana dee waan iska naari lahaa ka markaa wax kale haddii aan arkayo aan qabanayo waan ka tirtiri lahaa dunida Jaamac Axmed ku soo dhawow Socdaal TV waan dhawaay walaal su'aal la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo shaydaan ka soo horbaxo maxaad ku sameyn lahayd kulli shaydaanku waa dhuuseereede oo iska naar lahaa waa haydi wax kale ma ku sameyn lahayd may wax kale kuma sameeyo magacaygu waa Cabduladiif Farxaan Raah Cabduladiif ku soo dhawow Socdaal TV oo ku dhawaay walaal su'aal la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo shaydaan ka soo horbaxo maxaad sameyn lahayd shaydaan hadduu iga soo horbaxo dee waan la googoy lahaa wax kale jira yaa ilaa iyo si walba waa iska naari lahaa wax kale ma ku sameyn lahayd wax kale kuma sameeyeen walaqsan Saldir Cabdicasiis ku soo dhawow Socdaal TV dhawaay walaal su'aal la dhax qaaday dadweynaha magaalada Burcaayo dhanaysa hadiiba ay dhacdo uu ka soo horbaxo shaydaan maxaad sameyn lahayd A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim
kaas horta maba dhacaysa iga soo horbixin badde laakiin waaba shaydaan wax loo yeedho maba aha badde waa iska naari lahaa haa waa sidaa haddaan dili karayana waa ka dhammayn lahaaba haa waa sidaa magacay waa cabdirasaaq axmed maxamed cabdirasaaq kusoo dhawow socdaaltii waan ku dhaway walaalaad dhammaysanta dadweynaha magaalada burcaayo dhanaysa haddiiba ay dhacdo shaydaan kaa soo horbaxo maxaad ku samayn lahay shaydaan soo maaha dee shaydaanka beerkaasinu ka laada lahayn wuxuumana shaydaan ahayn shaydaanka maaragta haragiisa ku tukan lahaa haddii ka soo horbaxo waan mid waana tahay waa nacab waxaa dadka halkaa geeso maa khriiftiinka masiijiyey shaydaan haragan kusan ku tukanayna waa nacab ala naarta ku foga ma shaydaanka ilaahay waxaynu ka bareen ilaahay xidho rabadaanteeda jeelka lagu ururiyo yaa waa sidaa maxaan dee intaas ma ku samayn lahaa intaas ma ku samayn lahaa mustafa kusoo dhawow socdaaltii waa dhowahay su-aal la dhaqaaday dadweynaha magaalada burcaayo dhanaysa haddiiba ay dhacdo uu shaydaan kaa soo horbaxo maxaad samayn lahay cawd bilaahi shaytaan dee maxaa naga soo saaray horta dee marka hore inta saa u eega oranaa ma qofa dee horta maanaan arag shaydaan ilaahayna ma tusee deedna waanu iskaga tegnayn magacay waa saalax xamed ducaale saalax kusoo dhawow socdaaltiif ku dhawe su-aal la dhex qaadnay dadweynaha magaalada burcaayo dhanaysa haddiiba ay dhacdo uu shaydaan kaa soo horbaxo maxaad ku samayn lahay dee waa iska naari lahaa cawd billaahi min ashaytaan rajiim inkastoo aan shaydaanku niyow aan shaydaanka lama arko shaydaanka waraabaha iyo wixii insii unbaysarka laakiin insii jiri ilaahay iyo rasuulkiisa waa sheeganoo ismaba arkaan marka horeba laakiin mar walba shaydaanku waad iska naaraysaa oo isagu waa ku arkaya waa sidaa magacayga waa xamsi saleebaan ismaaciil xamsi kusoo dhawow socdaaltiif waan ku dhowahay su-aal la dhex qaadnay dadweynaha magaalada burcaayo dhanaysa haddiiba ay dhacdo shaydaan kaa soo horbaxo maxaad samayn lahay shaydaanka ma markaad aragta mise mar walba dee hadduu kaa soo horbaxo dee waxaad oranaysaa acuudu billaahi min ashaydaani rajiim miyaan la naarin shaydaanka miyaa la eryadaa yaa haddii ay dhacdo ka hor waad naari lahayd waa naari lahaayun dee waa ka waa falilaahi alxamdu waa cararayaa dee walal marka lacag aniga askariya toomaas kusoo dhawow socdaaltiif waan la socdaa su-aal la dhex qaadnay dadweynaha magaalada burcaayo dhanaysa haddiiba ay dhacdo shaydaan kaa soo horbaxo maxaad ku samayn lahayd doota hadeer buu ku ag taagan yahay bal hoos u dhigo dee waxaa kuma sameeyeen wan cidula shtar tims la rahaa dee maxaa haddii diidana waan qaadi lahaa yaasiin kusoo dhawow socdaaltiif kusoo dhawahay su-aal la dhex qaadnay dadweynaha magaalada burcaayo dhanaysa haddiiba ay dhacdo shaydaan kaa soo horbaxo maxaad ku samayn lahayd dee shaydaanka horta innagu mana aragno dee shaydaan badde kaa soo horbixi maayo soo arki maysaan badde dee laakiin misena qof dhacay dad artid axudu bilaahi shaytaan rajiim dhaafaysaa wandee inaas ma kaga baxaya